gabadhan ayaa aaday madraso gaar ah oo wax lagu baro gabdhaha. waxa ay raacday baska iskuulka, waxay ku sii hakadeen goob, waxay bilaabeen inay sawirtaan waxna qortaan. gabadhan ayaa gooni uga baxday gabdhihii kale. waxaa la soo gaaray waqtigii uu dhaqaaqi lahaa baska iskuulka. gabdhihii kale ayaa baskii raaceen ayadoo ka maqneed goobta. markii ay maqashay dhawaqa baska oo dhaqaaqaya ayay soo oroday iyada oo iska xoortay wax allaala wixii ay gacmaha ku haysatay. gabadhii ayaa u dhawaaqday baskii ayadoo rajaynaysay in loo joojiyo ama uu dib ugu soo laabto. nasiib darro, darawalkii ma uusan maqlin mana arag gabadha ka daba qaydaysa. gabadha oo baqanaysa ayaa ku dhaqaaqday wadadii basku qaaday. waxaa ku dhacay qoraxdii. waxa ay maqashay dhawaqa waraabayaal. cabsidii ayaa ku sii ziyaaday gabadha. ayadoo iska sii haysa wadada waxay aragtay mudul yar oo aad u qurux badan. waa ay ku faraxday waana ay aaday. waxay aragtay nin dhalinyaro ah oo mudulka ku jira. waxa ay uga sheekaysay waxa ku dhacay iyo meesha ay rabtay. wiilkii dhalinyarada ahaa ayaa soo dhoweeyey gabadhan. waxa uu ku yidhi, hagaag walaashay qaali ah, soo dhowow. marka waagu baryo waxaan ku geyn doonaa goobtii aad ka soo luntay si aad u hesho baskii ku geyn lahaa xaafadda. sidaa darteed, maadaama ay tahay cawo, waxaad jiifanaysaa agtayda. waxaad ku seexataa sariirtayda, anigana waxaan seexan doonaa dhulka. gabadhan ayaa waxaa ku jirtay cabsi daran oo ku saabsaneed in ninkan dhallinyarada ah uu damaaciyo nafteeda. balse waxay mar walba arkaysay ninkan oo akhrisanaya kitaab. wuxuu aadayaa shumacii daarnaa, faraha ayuu saarayaa, waxaa ka gubanaya farihii. waxa ay gabadha u malaysay in ninkan uu yahay jin. markii la gaaray subaxii, ninkii dhallinyarada ahaa ayaa waday gabadhii. waxa uuna geeyey meeshii ay doonaysay. gabadhii ayaa waxay aabbaheed uga warantay qisadii dhex martay wiilkan dhallinyarada ah iyo iyada. aabbihii ayaa la yaabay. waxa uuna go'aansaday inuu soo baaro wiilkan dhallinyarada ah waxa ku kallifay inuu gubo farihiisa. aabbihii ayaa u yimid wiilkii dhallinyarada ahaa meesha deganaa. waxa uuna weydiiyey, maxaa ku dhacay farahaaga? wiilkii dhallinyarada ahaa ayaa ugu jawaabay aabbihii dhalay gabadha, balse ma oga in uu yahay ninka dhalay gabadha. shalay galab waxaa ii yimid mar qorax dhici ahayd gabar dhallinyaro ah oo wareersan. waxaan seexiyey agtayda. shaydaan ayaa mar walba ii imaanayay. waxaan akhrisanayay kitaab si uu iiga tago, laakiin nasiib darro, shaydaankii weli waa uu ila joogay. wuxuuna igu dhiirigelinayay in aan aado gabadhan. kadib waxaan go'aansaday si aan u xusuusto cadaabka jahannama in aan faraha saaro dabkii ka baxayay shumaca. aabbihii ayaa wiilkii dhallinyarada ahaa ku yidhi, nakeen aan aadnee gurigayga. markii ay soo gaareen gurigii, aabbihii wuxuu u yeeray gabadhii. waxa uuna ku yidhi wiilkii dhallinyarada ahaa, ma taqaanaa gabadhan? wiilkii ayaa ku jawaabay, haa, waan garanayaa, waa gabadhii aan seexiyey xaafadayda. aabbihii ayaa ugu jawaabay wiilkan dhallinyarada ah, haddaba ogow, gabadhayda waa sawjadaada. waad ku mahadsantahay daawashadaada.